Asalaamu calaykum caruurey kusoo dhawaada sheekadii ninkii indhoolka ahaa oo tuugsan jiray. Waxaa jira nin indhool ah oo tuugsan jiray, wuxuuna ka tuugsan jiray waddo buuq badan. Odagan waayeelka wuxuu ku tuugsan jiray warqad ay ku qoran tahay i caawiya indhool ayaan ahay. Laakiinse caruurey nasiib xumo wax caawin jirayna ma jirin, weelkiisana wuxuu ahaa eber. Maalin maalmaha ka mid ayaa waxaa soo agmartay gabar xayeysiinta ka shaqaysa, waxayna aragtay calaamadda ku qoran i caawiya. Waxay kaloo aragtay odaga miskiinka ah inay dadka dhan iska dhaafayaan oo wax caawinaya aysan jirin, balse way la yaabtay arrintaasi. Waxayna go'aansatay inay boorka ka beddesho oo ay ku qorto oraah kale oo ka fiican oraahdii ugu qorneyd odayga waayeelka ah. Markay qortana way iskaga tagtay, dadkiina waxay bilaabeen inay caawiyaan odagan waayeelka oo indhoolaha ah. Baar yarna kadib waxaa buuxsamay weelkii uu ku tuugsanayay odagii waayeelka ahaa. Wiil meesha maraya ayuu wuxuu ku dhahay, miyaa akhrin kartaa waxa boorkan ku qoran? Wiilkiina wuxuu yidhi haa. Wiilkii wuxuu yidhi waxaa ku qoran boorkan, waa maalin qurux badan, adinka waad arkaysiin, laakiinse aniga ma arko. Caruurey erayo isku mid ah ayaa haddana isticmaalkooda ama aragtidooda ay kala wacan.